xaaladda ciidamada Ruushka markaan waxay maraysaa baraka ma leh. Meeshii aad ka soo gaartid ku dhufo gantaalka ayay maraysaa. Duqayntu waxay ka baxday xadka Ukraine oo ay ka tallaabtay 3 gantaal oo waaweyn oo lagu dhuftay Poland. maxay sababtay xilligan in Ruushku uu duqeeyo Poland? Faahfaahin gaar ah iyo falanqeyn ayaanu ku sameyn doonaa saaxiibayaal. qaybo ka mid ah magaalada Lviv oo aad moodo inay tahay god, magaalada oo dhan mugdi iyo biyo la'aan, koronto la'aan iyo cunno la'aan, ayay mar kale Ruushku weerareen oo ay duqeeyeen. weeraradu waxay burburiyeen deegaanadii ay dadku lahaayeen, sidoo kale waxay burburiyeen guryihii iyo dhismayaashii magaalada shidayay. ugu yaraan 3 gantaal oo waaweyn ayay Ruushku waxay ku dhufteen saldhig weyn oo ku yaala magaalada Lviv, xadka Poland iyo Ukraine oo wadaagaan ku taala. waxaan la soo warinayaa in xaaladdu ay tahay mid halis ah. Poland ay suuragal tahay in jawaab cad ay ka bixiso. qaybo ka mid ah magaalada ayaa gebi ahaanba koronto la'aan iyo biyo la'aan ah. Kadib waxaa loo maleynayaa in lagu weeraray shabakadda tareenada ee Ukraine. dadka ayaa waxa ay ku ordayaan wadooyinka markii gantaaladu ay soo dhacaan. waxay ahaayeen gantaaladii ugu horreeyay ee Ruushku ku garaaco galbeedka Ukraine in ka badan 7. waxaana qaarkood la soo warinayaa in gudaha waddanka Poland ay ku dileen dad shacab ah oo halkaas ku sugnaa. Ruushka ayaa hore u beegsaday shabakadaha tareenada, waxayna muhiim u yihiin ilaalinta saadka hubka reer galbeedka ay ku qulqulaya bariga waddanka Ukraine. Poland waxay noqotay marin weyn oo reer galbeedku ay maraan oo ay kaga tallaabaan Poland. waxaanu ku xasuusanaa in socdaal uu ku tagay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ah ninka ugu weyn ee ishayaan madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. waxaa sidoo kale Poland booqasho ku tagay saraakiil ka tirsan Mareykanka oo ay ka mid yihiin xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo xogayaha difaaca waddankaas. waxa ay safka hore kaga jirtaa dalalka u diiwaan gashan Ruushka oo uu aaminsan yahay in ay yihiin cadowgooda diriska la ah. Ruushka hore ayuuna dhowr jeer u beegsaday tareeno iyo wadooyin istiraatiiji ah oo ku yaala halkan. safka hore meelaha aadka loo ilaaliyo ayay ka mid tahay magaaladan, waxaana aad loogu baahan yahay baa la yiri in la waardiyeeyo. Ukraine ayaa Ruushka ku eedeysay inay duqeeyeen shaqaale ka shaqeynaya warshad ku taala magaalada oo dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Donetsk oo ay gooni-goosad ku haystaan. waxa ay sidoo kale sii xoogeysanayso duqeynta loo geysanayo magaalada Mariupol oo ka tirsan Ukraine. waxaana magaalada dekedda ee Mariupol la soo warinayaa in 200 oo qof ay weli gambaad uga jiraan oo loo baahan yahay in la badbaadiyo. maamulka Ukraine ayaa ka fiirsanaya samaynta marin cusub oo bini'aadanimo kadib markii ay shalay ku guuldareysteen in magaalada ay ka saaraan ilaa 100 qof oo rayid ah. ciidamada Ruushku waxay isha ku hayaan qaabka loo bixin doono ciidamada halkaas ku jira, iyagoo aaminsan in 2,000 askari oo halkaas ku dhuumaalaysanaya in ay gacanta ku dhigaan oo ay gacantooda soo geli doonaan, iyada oo Ukraine dhankeedu ay isku dayayso inay ku dhex qariso dadka shacabka ah ee qaramada midoobay daad gureynayso. laakiin Ruushka ma ogola oo waxa uu isha ku hayaa dadka meesha ka baxaya. dhanka kale, cunaqabateennada tamarta ee midowga Yurub ee Ruushka ayaa sii adkaanaya, iyada oo wadaxaajood iyo kulamo ay ka yeelanayaan wadamada midowga Yurub. waxaana ay leeyihiin waa in aanu ka wada hadalnaa waxa aan ka yeelayno tamarta Ruushka si aanu cunaqabateyn kale u saarno. waxaa la filayaa midowga Yurub in uu soo bandhigo cunaqabateyn cusub oo ka dhana Ruushka gelinka dambe ee maanta, oo ay ku jirto qorshe lagu doonayo in meesha looga saaro saliidda Ruushka. tani waa tallaabo weyn marka loo eego inta dowladood ee xubnaha ka ah oo ay ku tiirsan yihiin ishan. guud ahaan ururka waxa uu ku tiirsan yahay Ruushka 26% saliidda uu soo dejiyo. waxay horeyba u siiyeen in ka badan 47 bilyan oo euro oo u dhiganta 47.43 bilyan oo dollar oo lacagtaasi ah. Ruushka gaaska iyo saliidda ayuu lacagtaas ka helay dalkani tan iyo markii uu dagaalku bilowday. waxa uu faa'iiday lacagtaas aadka u tirada badan, laakiin waxay aaminsan yihiin reer Yurub iyo reer galbeedkuba in haddii ay bedelaan qorshahaas, Ruushku ay ku dhici karto gaajo iyo macluul. Jarmalku waxa uu ku tilmaamay in uu awood u leeyahay in uu maareeyo saliidda Ruushka la'aantiis
dhammaadka 2022 oo uu ka maarmi karo dhammaan saliidaha Ruushka kaga imaada. Wadamada kale ee Midowga Yurub ayaa toddobaadkan ku mashquulsanaa sidii ay u joojin lahaayeen ku tiirsanaanta Ruushka, laakiin quruumaha qaarkood ama dalalka qaarkood sida Hungary iyo sidoo kale Slovakia ayaa si aad ah ugu nugul saliidda iyo gaaska Ruushka. Hungary gaar ahaan iyada ayaa u daran, waxaana ay ka soo horjeesatay cunaqabateynta tamarta xooggan ee ka dhanka ah Ruushka iyadoo leh baahi baan u qabnaa kama maarano. Ruushka ayaa kooxo guuto ah markan ka sameynaya baaleeyadana waqooyiga waddankaasi Ukraine sida ay sheegtay dowladda Britain. Warar kala duwan oo ka soo baxaya wasaaradda difaaca UK ayaa lagu sheegay in Ruushku uu 22 guudo geeyay meel u dhow magaalada Izium oo ah magaalo bari kaga taala Ukraine si ay u riixaan ciidamada gobolka Donbas. Inkasta oo ay ku dhibaatoonayaan inay jabiyaan difaacyada Ukraine oo ay ka dhisteen derbi adag iyo sidoo kale waxyaabo aan la jabin karin, Ruushku waxay aad ugu badan tahay in uu damacsan yahay in uu ku sii gudbo Izium si ay ku qabsadaan magaalooyin istiraatiiji ah sida wasaaraddu sheegtay. Qabsashada goobaha waxay xoojinaysaa awoodda militari ee Ruushka ee waqooyi bari Donbas, waxayna siinaysaa bartilmaameed ay ku doonayaan in ay ku gooyaan ciidamada Ukraine ee ku sugan gobolka, ayaa lagu daray warbixinta. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in 156 qof oo la soo daadgureeyay ay ku yimaadeen basas magaalada Zaporizhzhia ee Ukraine ayna maamusho ciidamada Ukraine ay gacanta ku hayaan. Qaar badan oo ayaga ka mid ah ayaa muddo bila ah gambaad ku ahaa warshada birta ee Azovstal ee magaalada ay burburiyeen ciidamada Ruushka ku taala ee Mariupol. Laanqeyrta cas ee ICRC ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay daadgureynta sida guusha ah ku soo dhamaatay, balse ay ka xumaatay in dad badan oo kale lagu daayo jahannamada oo ay kala jeedo warshada birta ee Azovstal. Dadka ku jira inay ku jiraan jahannamo oo ay u baahan tahay in laga soo saaro. Boqolaal qof oo rayid ah oo ay ku jiraan in ka badan 10 caruur ah ayaa weli ku hoos jira burburka Azovstal, ayuu yiri ra'iisul wasaare ku-xigeenka waddankaas. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 15 kalena way ku dhaawacmeen kadib weerar lagu qaaday warshad kook ah oo ku taala bariga Ukraine. Duqeymaha Ruushka ayaa bilaabmay iyada oo shaqaaluhu ay sugayeen inay baska ku qabtaan ama ay u qaataan dhanka gurigooda. Mas'uuliyiinta deegaanka sida ay sheegeen, gantalaha Ruushka ayaa lagu garaacay magaalada Lviv ee galbeedka waddankaasi oo ku taala xadka ay wadaagaan Poland iyo Ukraine, waxaana ku dhacay gantaalada xarumo koronto oo dhowr ah, taasi oo keentay in magaalada oo dhan ay noqoto koronto la'aan. Weerarada ayaa sidoo kale la beegsaday 6 saldhig oo ay tareenno maraan, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan kuwa tareenada waddanka Ukraine, waana arrin kale oo saameyn leh waxyeelo daran u geysatay gaabayaasha. Weeraradan ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa in ay ka socdaan qaybo ka mid ah Kiev iyo Odessa iyo Kharkivba, waxaana ka mid ah hogaamiyaashu inay leeyihiin xaaladdu way adag tahay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu baaqay Ruushka inuu joojiyo gardarrada ba'an isaga oo la hadlayay madaxweyne Vladimir Putin. Saraakiisha Faransiiska ayaa sidaas sheegay, waxaana ay leeyihiin waa in la joojiyaa gardarrada cad ee lagu hayo bulshada Ukraine. Gudahaan saaxiibayaal, waa inaga intaa barnaamij sureedkeena tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono. Nabadgelyo.